Guslan isiilana ku dhalay qortee. isbuucan waxaa baraha bulshada Soomaalida ay ku kulantay ee TikTok haystay ninkan iyo xaaskiisa. ninkan iyo xaaskiisa waxay caan ka yihiin TikTok ayagoo maalin walbo subaxdii waqtiga hore soo galo live-ka. dad far badan oo Soomaali ah oo gabdhan ay ku xiran yihiin. dabcan boqolaal kun oo followers ayuu haystaa ama ay haystaan dadkan. dadka ku xiranna ma ahan dad Afrikaan kaleeta ah ama dad cadaan ah oo ajnabi ah ama Carab ah. dadka ku xiran oo dhan waa dad af Soomaaliya ku hadla maadaama dadkan af Soomaali ay mataqaana wax ku soo jeediyaan. dadka ku xiran oo dhanna badankooda waa dad sida ayaga oo kaleeta ah isla markaasina haddii ay Janice u heli lahaayeen Janice-ka maanta ay haystaan oo ay joogaan Mareykanka ama Yurubta ay joogaan haysan lahaa sidaas oo kaleeta ku sameyn lahaa familkooda. sababtoo ah haddii family saas u hadlaayo ama saas waxyaabo fandara ka hadlaayo ama waxyaabo sariirtooda gugushooda ka hadlaayo haddaad taageeraysid ama aad follow u tahay dabcan adigana raali ayaa ka tahay. sidoo kale dadka qoomuluudka ah dad fara badan oo Soomaali ayaa ku xiran. qof walba gal friendskiisa waxaa ku arkaysaa Soomaali fara badan oo friends la ah. dabcan dad cadaan ah dadkaas kuma xirno. okay maalin walbo haddii aad ku dhiirigelisaan dadka qoomaluudka ah dadka waxyaabaha faaxishada ka sheekeeyo haddii aad ku dhiirigelisaan in ay mataqaana flow badan helaan kadibna ayagana maalin walba ay idinkaga sheekeeyaan waxyaabo fara badan ay idin soo gudbiyaan adinkana aad live kusoo kortaan. waxaa kaloo iiga sii daran gabdho fara badana usoo koro mataqaana live-ka markaasoo inuu asigana live-ka ka baxo oo mataqaana live-ka shaashadu iska sii jeedinayaa kadib ee mataqaana waxyaabo oo macnaha oo dadka ay laabtooda ku kicinayaan ama dareenkooda ku kicinayaan ay dhahayaan. laakiin sababtoo ah dadkan orgey iyo macnaha ma ahan ceesaan ma ahan oo maadna iskorkoraya ma ahan laakiin camera iska leexinayaan waxay maqashinayaan dhawaq oo mataqaana dad oo galmo sameynayo oo kaleeto. markaasaa dadka gabdhaha saan waxay dhahaan maasha hadee bilaa barataa waa kana aan waxa dareemaya subxaanallah waa gabdho Soomaaliyeed waa hooyooyin qaarkood mataqaana qurbaha joogo dhammaantooda macnaha waxa waaye laabta ay ka qooqan yihiin dhammaantooda. sababtoo ah dadkan waxyaabo ayagaba ay sameynin iyo waxyaabo isku sameynin iyo waxyaabo kaleeto mataqaana ka sheekeeyaan. dad qofka markuu ka sheekeeyo galmo iyo waxyaabo kale ka sheekeeyina wuxuu mar walba wuxuu ka sheekeeyaa waxyaabo asiga markaas uu tabayo waxyaabo asiga inuu sameeyo rabo uu ka hadlaa. dadkanna waa dad ay kaba rabaan masaniyada ka baahan ninkii naagta idin la hadlaayo waa nin iyo naag ay kaba mataqaana oo qalbiga ka baahan. marka wax haday haystaan ama NFA yihiin inay meel soo fadhiistaan waxaas kama hadli lahayn. laakiin isbuucii ugu dambeeyay ama isbuucan hadda lagu jiro waxaa shaashada haystay ninkan iyo xaaskiisa maadaama ay baraha bulshada TikTok ay ka yihiin dad caan ah. wax kale macnaha uma haysanin TikTok gabar yar oo dhalay ayaa live-ka mataqaana uu soo geliyay ama mataqaana uu soo qabtay kadibna waa uu wareystay gabadha dabcan af English ku kula hadlayay haaf yar laga soo gooyay aan ku arkay waa haafka markaas ugu muhiimsan ee Soomaalida ka soo goostaan. okay haafka laga soo gooyay kadibna waxa la soo geliyay macnaha ay sheeg ee TikTok asigoo dhahay Guslan isiilana ku dhalay qortee. markaas wuxuu leeyahay marka aab orod bax mataqaana ay sheeg ninkii ku helo ninka ku helo wasmo fiican ka helaa miinde habartii ama ka xaq ka qaynas waxay leedahay maasha Allah da haddii ay gabadhan ay weynaato ninkaas iyo ayada maxaa kala celinaya macnaha ninkaas inuu mataqaana gabadhiisa wuxuu rabo ku sameeyo yaa ka celinaya cid ka celinaysa ma lahan. adiga ugu dambeyntii live ayuu wuxuu soo galay asigoo isla dharkaas wato asoo mataqaana waqtigii uu mataqaana gabadhiisa hayay aan jeclahay macnaha wuxuu watay garan cad nin la dhaho Migos oo asigana waxba ay isdhaamin oo mataqaana live isu soo galeen. marka Migosna kolay su'aalo weydiiyay yaa idin kor dhicin kolay qaarkiin badankiin inaad dhageysteen oo maleynaya su'aashi ugu mataqaana ugu yaabka badneed la weydiiyay isla markaasina waxyaabo uu ku jawaabay iyo mataqaana sidoo asiga mataqaana falcelintu uu ka sameeyay ila dhageysa marka hore. هل آية يا أخي هل كان آية ما أدري ما عندي أوجه أنا وأشهدها هذه هل كان آية يا أخي ما أدري آية ترتو كوارنا لكن أدري واحد إيشتا مسلمات هاي مسيح Soomaali ذا كريستيان كاتا عيسى مسيح كسوجدا بس عيسى مسلمات هاي مسيح ميتي أنا مسلم أشهاته أنا مسلم أشهاته ودحay aniga muslimna ahay waa ashahata nin soomo oo salaado ah u dhahay mugtay oo diin. okay su'aal baa xal weydiiyay marka hadalka uu weydiiyay marka dhageysa marka xaaskaaga aad qabto naaseed maxaa banaanka u soo dhigtaa
haddii aad muslim tahay qof muslim haddaad tahay oo aad aaminsan tahay jawaabta uu ka bixiyey marka hadda uu aamusan yahay cabaaroo aamusay xoogaa dhagahood taaga macnaha sababta su-aashoo ma maleysanaynin su-aasha in la weydiinayo ma maleysanaynin marka wuu aamusay cabaar kadib muxuu ku falceliyey marka ila dhegeysta marka falcelintiisa laa ilaaha hooyadaa silkeed iyo nacalada iskaa dhashay was kaniisada iyo doonfaarta iskaa dhashay was oo daahirsaneen oona daahiraynin buu dayuus kala jira najaasta kala jira wacalka kala jira dabcan waa ujeedaa wuu caaytamay oo hooyo iyo waxyaaba aan loo joogin ayuu caayay marka haddaa adinka fiqsiga aadan faafinin oo dadka aadan follow siinin views aan siinin aadan u buuxsamin life walba ee mataqaana soo koraan cid oo mataqaana fuqsi iyo mataqaana fasaad faafin lahayd malaha sababtoo ah culumadii waa niyajibiseen dadkii wax wanaag idin soo gudbinaa waa niyajibiseen dadkii xumaanta iyo mataqaana iyo fiqsiga iyo fasahaadka iyo dadka jinsiyada qoomaluudka ah iyo naagaha isqaba iyo nimanka isqabo aad dhiirigelisiin 4 saac waxaad dhex taagantihiin laafafkooda muuqaaladooda waa sheergaraysiin magacyadooda iyo waxyaabaha ay sheegtaan doo nin sheegtay oo naag ahaa ninnimada mataqaana ugu wacdaan magaciisa doo raaga sheegtay raaga ugu wacdaan hadduu samsam sheegto oo nin ahaa samsama ugu wacdin sababtoo ah gabdhaha badankooda waxba diin ma lahan wallahi inama sheegay ilaahay Soomaaliya dawlad oo mataqaana oo diin leh oo caadil ah ilaahay nooga dhaliyo sidoo dadkan qurbaha oo Soomaaliya soo aaday oo diin la'aanta ah diintooda la'aantaas ka ahaadaan kuwa Soomaaliya joogo oo mataqaana oo rabaan inay qurbaha soo aadaan oo mataqaana isheeg oo inay halaabaan ama waxyaabo fiqsiga soo gudbiyaan ilaahay waxaan leeyahay sirtooda iyo makarkooda ilaaha soo bandhigo ilaahayna mataqaana wax qabto oo xabsiyada qaarkoodna geeyo qaarkoodna xukunka ee markaas ay qabaan ku fuliyo ilaaha sahlo marka waxa idin leeyahay hal iska ilaaliyo dadkan dirgelinaysan joojiya hal iska follow hala dhaho hala blog gareeyo dhamaantooda hal report gareeyo muuqaalkaana sii share gareeyaan la wadaag asxaabtaada dhan dhamaantooda si mataqaana fiqsiga iyo fasahaadka iyo wax walba ugu hortagno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh